waxaan halkan aan ku soo booqannay dadkii dhaawaca ahaa oo shalay la keenay oo dadkii qaraxa ku soo qabsaday maxaan ku raahdaa shalay wixii dhacay ogtihiin oo ahayd musiibo qaran waxaan soo booqnay isbitaalka Erdogan Hospital waxaan ilaahay uga baryeynaa dadkaas inuu si degdeg uga kiciyo dadkii dhintana waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu naxariis jannadiisa siiyo runtii waa xaalad aad iyo aad u adag waxaan ugu yeeri karnaa musiibo qaran qaraxii shalay foosh xumaa oo ka dhacay halkan ay dadka badan ay ku la'deen taas waxay cadeynaysaa qolooyinka horarka oo nabadiidka ah oo al-shabaab inaysan u naxayn cidna inaysan targetkooda ahayn ama aysan diiradda saarin dawladda iyo xarumaha dawladda laakiin ay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inaan iska qabanno oo loo baahan yahay inaan u istaagno waxay la dagaalsan yihiin shacabka Soomaaliyeed wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idin ku raahdaa hooyooyina aabooyina walaalaha iyo ahaayeen oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso waxaan ka qaadanaa geesinimo waxaan ka qaadanaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno aan u cirib tarno hadduu Ilaahay yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha loo wada istaago dagaalkan waa dagaalna wada haysta mid istaagaya ma aha ilaa qof walba oo Soomaaliyeed uu istaago dagaalkan dagaal istaagaya ma aha dhalinyarada waxaan leeyahay dalkan idinka iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la leynayo waa hooyooyinkiin waa aabayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dawladdiina weey waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dawladda u shaqeeya ma aha dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay annagoo idil waxaan iskaga qaban karnaa annagoo mid ah annagoo u midowna oo u istaagna iskaga qaban karnaa insha Allahna waa ku guuleysana hadduu Ilaahay yiraahdo waa ku guuleysana si degdeg ah